hambaliyo waxaan dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableydaba ugu hambalyeynaya munaasabadda 66 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. maanta waa maalin weyn ku weyn guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan maalintii ciidamadeena sharafta leh ee la aasaasay. maanta waa maalintii gobonimada Soomaaliya ay dhameystirantay oo aan helnay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo xuduudaha badda iyo bariga iyo cirkaba difaaca. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdoodii iyo dhismahoodii waxaa ka warramay saraakiishii iga horeysay waqtiga kulul iyo mataqaanaa waqtigu aad noogu yar kuma laabanayo, laakiin waxaan kaliya ka taabanayaa in ciidankani lagu aasaasay ciidankii booliska Soomaaliyeed ururo ka mid ah lagu aasaasay kadibna ay u gudbeen guutooyin u gudbeen adduunkana taariikh ka dhigeen. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhda waxaa ugu jirta inay ka mid ahaayeen ama ay ahaayeen wadamada ciidamada ugu awoodda badan qaaradda Afrika. ana asaaskoodii oo ka bilaabmay ururo ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed kadibna gaaray inay Afrika oo dhan ugu xoog bataan. halka waxay ku tusinaysaa dadaalka saraakiishii aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan halkaan uga ducaynaynaa saraakiishii aasaasay oo General Daawud ugu horeeyo, General Maxamed Siyaad Barre, dhammaan saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhiigooda u miiray heerkan soo gaarsiiyay. sidaas oo kale askartii ku shahiiday halgankii gobonimada doonka iyo halgankii qawaariinta lagu jiray intaba ku shahiiday waxaan leenahay Allah ha naxariisto. sidaas si lamida waxaan hambaliyada gaarsiinayaa ama u dirayaa xaasaska ciidamada qalabka sida oo ah laf dhabarta dii xaasaskaasu aysan caruur tahayn oo reerka aysan hayn maanan helin lahayn ciidan heegan oo difaac noogu jira. intaa bacdigeed waxaan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor oo labadooduba ku sugan Muqdisho. salaan diiran ayay idin soo dirayeen waana idin hambalyeynayaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadba heer ayuu soo maray. 60kii ilaa 90kii wuxuu soo maray heerkiisii ugu sareysay ee abad uu gaari lahaa. 90kii ilaa 2000 maba jirinba ciidankii waa dumay waa baaba'ay. 2000 ilaa 2015kii dibadis ayaa lagu jiray dibadiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 2015kii ilaa maanta oo 2026 ahna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalinba heerka ka sareeya ayuu marayay. ilaa maanta uu marayo diyaaradaha F-16 iyo helikobtaro iyo beebeyaal iyo taangiyaal inay marayaan wasaaradda gaashaandhigga oo dabaaldegaas lagu jiro. fariinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu diray meelo badan oo caalamka ayay gaaraysaa ilaa iyo diiran. dawladaha ama dadku waa kufaan, laakiin in aan la soo kicin ayaa mataqaanaa ceeb ah. waxaan leeyahay Soomaaliya waa kuftay waa inay soo kacday. maantana cagaheeday ku taagan tahay. waxaan rabnaa ilaahay hadduu yiraahdo afarta gees in laga istaago. qof walba Soomaali ah oo meeshaan maanta jooga mas'uuliyad ayaa ka saaran dawladda Soomaaliya inuu garabkeeda istaago. xukuumaduhu waa isbedelaan, shakhsiyaadku waa yimaadaan waa baxaan, laakiin haddaan systemkii lugaha ku dhegno oo niraan hebel baa maanta joogay lugaha lagu dhego hadda berri lama gaarayo. marka waxaan ku talinayaa siyaasiyiinta dhammaan in la garab istaago dawladda maanta joogta si loo helo dawlad buuxda oo berri ah. waddankeennan dhib waxaa ku hayay faqri iyo mataqaanaa dhaqaale la'aan. amniga dhaqaale u baahan yahay, horumarku dhaqaale u baahan yahay. alxamdulillah maantay khayraadkeennii ayaan la soo baxaynaa. rajo badan ayaa waxa laga qabaa in khayraadkeennu ilaahay hadduu yiraahdo si ugu dhaqsiya badan loogu soo baxo. duruufta ciidankeenna ay maanta ku nool yihiin kuma noolaan doonaan ilaahay hadduu yiraahdo hadduu shidaalku noo soo baxo. qalab casri ah, dhaqaale, ka warqab iyo xanaano gaar ah helayaan. intaas ayadoo lagu jiro waxaan rabaa inaan madaxweynaha
dowladda federaalka baaq u diro oo dhanka ciidamada ah waxaan leeyahay madaxweynow waad ku dadaashay intii aad joogtay xilka aad joogtay dhismaha ciidankan xuquuqdooda iyo noloshooda iyo duruufo adag ay ciidanku ku nool yihiin xaqiiqdii waxaan rabaa in aad keento fikir ah in mushaaraadka ay qaataan siyaasiyiinta ee tirada badan aniguba aan ugu horeeye in qayb ka midana laga jaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo leexiyo sababtoo ah habeen iyo maalin dhaxan iyo kuleel ciidankaas ayay noo taagay ayaan ku seexanaa kuna soo toosnaa siyaasiyiinta waxa la arkayaa xildhibaan aan laba sano xiriira baarlamaankii uu ka tirsanaa aan tegin halka ciidamadu hadday 2 maalin maqnaadaan wax dhibic la yiraahdo laga saarayo mushaarkoodii yaraa cadaalad ma waa ka mushaar badan yahay waa ka fasax badan yahay marka in cadaaladda loo soo laabto wasaaradda maaliyadda ay arintaa ka howlgasho qayb ka mid ah mushaaraadka siyaasiyiinta ee tirada badan in loo leexiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo mushaarkooda loogu daro oo logistika loogu daro oo nolosha hadda ay ku nool yihiin nolol ka duwan la geliyo Ilaahay duuyaado waajibaadkooda waa guteen waxaan markaa ku soo gabagabeynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kaceen waa dhismeen maantana meeshii ugu sareysay ay marayaan hambaliyo